dhulka Puntland banaanka hadaysan wabiyadu maraynin dhulka hoostiisa ku wada jiraan meel aan wax lagu beeri karin ma jiraan wax kasta oo hadda ka baxa koonfurtaas shishe shabeelooyinka oo halkan ka bixinna ma laha Puntland marka ay noqoto ay inkastaysan wabiye lahayn waxa dhici kartay mar aan halkan qudaarteeda dalageeda koonfur aan u dhoofinaynay oo diyaaradan saarna Kismaayo geynaynay am xamar geynaynay haddii la beerto wadankeena waa cogor wax soo saar badanna waa leeyahay waana la isku filan karaa haddii jidkeedii la helo inta ugu badan wadankeena ka soo go'anay adigu kale waxa ka yimaada yaanyadaas iyo baradhadaas Itoobiya nooga timaada inta kale wadankeena ka soo go'an beeralaydu waxay u baahan tahay xirfad yaqaan siirka iyo dalaga maxay tahay dawada iyo beerta ciideeda biyaheeda beerta nadaaminteeda landscape-keeda diyaarinteeda wax walba xilliga waxyaabo badan in laga fiiriyo marka wax la beerayo wixii soo dhan aqoon bay maartay u shuucayaan qofku markuu ciidda dhulka la beerayo waxay leedahay system raaco in nafaqada ka maqan dhulka cusbo ma leeyahay biyo cusbo ma leeyihiin kadib la ogaado dhulkan wuxuu ku fiican yahay dalag noocaaba ku fiican yahay kadibna processkii loo maro sidii loo beeri lahaa ilaa harvesting stage ku damay waxaan markan qabtiri lahaa oo anaga iyo beeralayda kalaba qabtiri kara dhalinyaradii beeraha baratay oo ay soo saareen jaamacadaheena soo saareen oo akademiga oo suuqa dhooban oo aan waxba qaban waxay qabtaan la meel wax ka bilaabaan la aqoonyahanada beeraha bartay anu hadda dad baan beer isla baranay arday baan beer isla baranay kaligii baa beer ka aaday intii kala shaqooyin kale iyo magaalada ku jira qof beerti intuu bartay toos ugu taxalluqa ma jiro horta waxaan ahay anagu kulliyadda beeraha lambarka ugu yar oo jaamacadda dhigta oo kulliyadahan sidoo kalena ardayda qofka markaa dhahdid ardayda macnaha kulliyadaha kale beeraan bartaa war maxaa beer ku falaysan beer baa leedahay ku dhaaya ma aaminsana muhiimadda ay leedahay beertu qofka ku soo biiraya markaa dhahdid tala ahaan waxaan kugu siinaa inaad beeraha baratin wuxuu ku dhahaya anu waxaa dhul baan qodanaya marka dee xagga waxaa ka jidha dhiirigelin la'aan iyo wacyigelin la'aan ka jidha dadkii beeraha muhiimadda ay leedahay inaan lagu wacyigelin dhibaatooyinka ugu badan ee beeralaydu qabto waa suuqgeyn ma haysan waxay samayn karaan nidaam ama shirkado suuqgeyna oo iyagu laba wareega qudaarta intay la wareegaan iyagu wax dalka lagu gadayo iyo wax dibad loo dirayaba kala nidaamiya waxyaabahaas oo dhan baa wax lagu maaragtay hagaajin karaa waan isleenahay waa wax fudud oo xataa maaragtay aan imkaaniyaad badan u baahnayn ee wax farsamo iyo technical iyo faham iyo nidaam iyo isku tashi iyo ku dhaqaaqda baahna caqabadaha ugu badan waxa ka mid ah dadkeenu inta badan waxay isticmaalaan habkii hore oo olliga wax loo beeran jiray in dhulka biyo lagu sii daayo siir intii lagu rido biyo lagu sii daayo la beero aan la xakameyn karin cudurkii iyo cayayaankii habka adduunka u guurana hadda waa modern sida in drip irrigation la isticmaalo biyo tashiilkii sida in greenhouses la isticmaalo sidaa daraadeed caqabadaha ku haysta waxa weeye dadkeenu waxay ku beertaan habkii hore oo laga guuray adduunku heerar kala duwan buu ka marayaa qolo walba meel bay tiigsanaysaa hadda meesha ugu sarreysa oo la marayaa waxay tahay haddii aan kuu sheego dhirta ka baxda derbiyada aan ka bixinba dhulka meelna aan haysan wax weeyaan hadda imkaaniyaadkii baa la haystaa ciidii baa la saamin karaa oo dhulkii baa maaragtay la saamin karaa oo biyihii baa la saamin karaa oo maxay ahaytoy xoolihii iyo beerihii baa la kala duwi karaa oo wax weeyaan deegaamayn loo kala samayn karaa waxaasoo dhani maanta waa suuragal waxaana kula talinayaa isteebyada noocaasa inay maraan inta aysan waxba beerina ay hubiyaan in waxooda midho dhal noqonaya hadii la yidhaahdo way yeeri karaan dadka beeraha ka shaqeeya ma helaan tababaro ku filan laakiin dadka inta badan qofka hadda markii loo beer baa la tababaraya qofkii mulkiilaha baa tababarka ka qayb qaadanaya oo tagaya tababarka soo qaadanaya laakiin qofkii aqoontii ma soo gaaraysa qofkii beerta gacanta ku haya oo beeray asagana ma gaarsiinay hadduu gaarsiinay caqabad waxa ka timaanaysa anu tan aqaanay taada ma aqaan hadda tababaradu waxay isugu soo aruureen 5 maalin 3 maalin oo inta meel lagu xiro la yiraahdo tababar baa la idin furay beeraley baa la tababaray dad kale la tababaray war 3 maalin iyo 4 maalin waxba ma aha laakiin waa qowda maqashii waxna ha u qaban marka waxaa loo baahan yahay oo kaliya dawladdu in ay muujiso wadaniyad la rabo in wax lagu soo saaro nin aan cook ahayn hadaa tiraahid ordo cook in noqo raashinku waa ka qasaahaya arinteeda ugu dambaysa waxa weeye in muhiimadda beeraha
wacyigelin lagu sameeyo oo dadkii lagu dhiirigeliyo inay intii beeraha ku jidhana ay wax soo saarkoodii kor u qaadaan inta ku dhiiranna ay jecelna inay beeraha galaan lagu dhiirigeliyo lana baro dadkiina iskaashatana la sameeyo dawladda beeralayda ganacsatada iyo hay-adaha afartaa tiir ayaa horta markii ay iyagu wax isla wadaan ay wax ku soo saari karaan dalagaas oo dhan oo qudaar ayuu nooc oo dhan ayuu beeraheena ka soo baxaa ayuu nooc wax kasta babaay batiiq koosto barbarooni ayuu nooc qudaar oo dhan bayturaaf batruul hadba qofba siduu ku yaqaano ayuu nooc waxay ka soo baxaan beeraheena garowe dadku inay wax soo saar gashadaan dhulkooda maal gashtaan waa loo baahan yahay dhalinyaraduna waxaan ku boorinaynaa inay wadankooda ka shaqaystaan wadanku waa diin yahay waa cogor